بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا يبشوا اللي حتاي لبضا كوني يلا باتنكا معني وناكسن وسلاسنا أي تاي وحين شيءنا أما إنه كهد لنا دولتي إنه قروح ضبضن الرأي قبضن تناسل كبضن مصبح عبدي إيوه مدحوينه أي هجامينيان دولد إنه لساننا أي تي إنه لساننا يتهاي إيشناد مدحوينها تشرا هو كيشناد وأنا موسى روبله إسقي عبد الرحمن سيلي عباد برواقي إنه كتشرا شيلان تشري مايو أي إحنا تشري مايو أباريني تشري ميشو aad baa wax ilaahay loogu mahadiyaa barwaaqadaynu ku jirno xayeeshee hadalka wanaagsan iyo caqligu ku jiro isu tanaasilka iyo quruxda badan xisbiyadeena ama xisbil xaakimku uu ku dhaqaaqay ta adduunyadu wax ku noqoto weeyaan madaxweynayaashuna ka soo baxaan madaxduna ka soo baxdo inaguna taa afrikada waynu dheernahayba wanaagga iyo quruxda waynu dheernahayba عقل متقني إيه عقل متنقص باكرة عقل متنقص هو حمر أيو يالا عقل متقني نوحي عقل متقني نوحي يالا سومالي لينبو يالا مركي الدولة دي رتيم كأهيد لفيدي إسن امتناس البيب بحيث مركا يسوق شيء قبصتي وضنك عقلي إيا قراد بيكو قبتي حكو قبتو دولدي وناك باك صوب حيتا إنو ما انتهار سنينو عاد بي وناك سناي شبهد كو وناك سلا بارك كي وحدو المية إيا كي لدو الميين وراك با وحلوغو وضا قرأي عد هلوغو وضا قرأ تاينو كنا لورينا أما إنو كفرنا واتا عقلي وناكسن ويا تاو حنوغا قد بيان هنبليين اياه وما هاد إلهي لو نقا مركا اوغو الرئيسة أنيقا شخصي أهان تاي برلمان كينو لبدا برلمان تاي كل دقاقين أما قد دقا أرنكاسي وكسو ياري كونتنا اللي حيرين مايو تمرنا ميشا وطلين مايان رقي قول انتي بقى وطلنيا عقلي يقراتكو برلمانكو كو قبي شرعي قد قدر لقا طوريا ايه دمركو شيقين وحي إلهي أمري دمركا ايه رقا اوكال حديي دينتين هايسنا ومدح ومحمديان وسني صحيح غلط مالي كريستان مالي أرتدوغس مالي ودولة مسلمة والله وبالله وأنا شخصي أهان تيك سلطان أهان إني ندو مركتلنين رجي كتلين تريبا كتلني سلطان ماذا وضا كان وحن له تاوحن كم محنبليين يا guddiga baarlamaanka uu xil saaran sharciga iyo waxiisu sheega ee shariicadii islaamku waxay u martay dumarka siiyeen midna waan ogolahay ama dadoo dhan baa ogol ama Soomaaliland oo dhan baa ogol saddex xisbi baynu leenahay oo caqli iyo garaad leh oo gudoomiyayaal iyo madaxweyne ka taliyaan xisbi ayaa laga soo baxaa inantaydu hadday xisbi ka soo baxayso oo saddexda xisbi ay doorasho u gelayso sharciga Soomaaliland waa loo simeeyaa wasiirada iyo baarlamaanka iyo madaxweynahana waa loo simeeyaa haddii loo simeeyahayna wax la xidhayo oo kuraasi la xidhayaa ama dumar loo xidhayaa ama dadka laga tiro badan yahay loo xidhayaa ma jirto yuu isxaqirin
yuu isxaqirin inankayga waxa la doonto aniga waxay la doonto xisbiga ama dumar ha ka soo baxeen oo gabadhay ha ka soo baxdo ama nin ha ka soo baxo waa loo sameeyay sharciga taa waan ka gudbayaa waxaan uga gudbayaa aqliga wanaagsan kullay iyo kullayba wuu joogaa aqligu wuu joogaa ha jooga laakiin waa in lagu dhaqmaa waxa la yaalo waxaynu qabnaa ma jiro xisbiyada inoo dhisani waa xisbiyada inagu dhisannay guddoomiyeyaashooda ee madaxdu ka soo baxayso dawladda iyo waxaan weydiisanayaa oon madaxweyne muuse biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka weydiisanayaa waar sharciga dhulka loogu talinayo xoolaha waa la raacaa sulaadiinta iyo cuqaasha iyo wadaadada iyo kuwa caqliga lehi sida xoolaha loo raacay dhulka u raaci jireen ha u raaceen wixii ku xun iyo wixii ku sanbay kala garanayeen iminka way dhabaqday sulaadiintu sidoodii uma raacayaan wadaadadu sidoodii waxba uma sheegayaan ee sharaacadda ay sheegaan cuqaashii halkoodii bay joogaan sulaadiinta iyo cuqaasha iyo taliyayaasha iyo abbaanduulayaashu waddankay ka talin jireen wixii diintooda ku xadgudbaya iyo wixii qabaa'ilka soo dhex mara iyo sharciga ay haystaan ee muslimka ah waxay ku xadgudba saddexdaasay raaci jireen sida xoolaha loo raaco tii meesha way ka baxday maxay uga baxaysaa aqliga waynu leenahay sulaadiinta iyo wadaadadu weliba waxaan faraya oon leeyahay oo weydiisanaya ma farayo waan weydiisanaya war dhulka saddexdaasaa ka talin jiray dawladdu ha ogaato dadka ku dhex nooli ha ogaadeen bulshada reer somalilan ha ogaato war dhaqankii waa la bedelayaa war magacyadii baa la bedelayaa war socodkii wanaagsanaa baa la bedelayaa war dharkii la xidhanayay baa la bedelayaa war arrinkii wanaagsanaa baa la bedelayaa inamada aabbayaasheen iyo ehelkeen iyo dadkii dhulka ku noolaa dhul bay inooga dhinteen xoolay inooga dhinteen maxaynu maanta uga dhimanaynaa inagu dhallinyarta meel ilaahay leeyahay ma jirto meel m c h looga sameeyaa ma jirto meel iskuulla looga sameeyaa ma jirto halkaa aan fadhiyo ilaa baddii ilaahay meelu leeyahay ma jirtee dad baa wada leh war suuragal maaha suuragal maaha cidda imanaysa waxa loo reebo cidda aad dhali doontaan ee jiilkani dhalayo meel ha looga tago dhul ha looga tago caqli wanaagsan ha looga tago ninka bilayska la keenay ee jananka ah uu wanaagsan yahay wuxuu u wanaagsan yahay maraakistii waa la kordhiyey isteeshinadii waa la kordhiyey dadkii dadka dhacaya waa la kordhiyey inamadii dadka boobayey waa la kala hagaajiyey ninka dabagala laydhaa ee jananka ah aad buu u mahadsan yahay isagiiyo madaxdiisu inta aan weydiisanayaa waxa weeye dawladda iyo madaxweynaha jira iyo madaxweyne ku-xigeenka ama wasiiradiisa ama baarlamankiisa ama saddexda gole war dhulka dhaqankiisii ha loo hayo war dadka dhaqankoodii ha loo hayo war garashadoodii ha loo hayo kusoo darayay weydiisanaya waxa weeyaan ninka buuggaa qoray waa maxamed yuusuf
maxamed yuusuf weeye waa raggii dhagax tuurka inamadii dhagax tuurka kuwan imika jiraa dhagaxna ma tuurayaan caqlina ma garanayaan timahoodii iyo dhaqankoodii iyo madaxoodii bay bedeleen inamadii maalintaa jiray waa kuwa caqliga wanaagsan la kacay wixii dilkii ka soo haray maxamed yuusuf buuggaa u qoraya gacanta ku hayo taariikhdii SNMta ayaa ku duugan caqliga wanaagsan ee ilaahay siiyey maxamed yuusuf badda ninka la yidhaahdo buuggiisana la yidhaahdo doolaal qoraalka uu qoray doolaal baa la yidhaahdo kaasoo kale lama qorin weli Somaliland may qorin kaasoo kale ha qorto aad iyo aad haddaad akhrido wax badan baa ku duugan gabay baa ku duugan garasadii maalintaa taagnayd baa ku duugan kiyo inan yara kaasoo kale ha la qoro jamaal cali xuseen baa iiga horreeyey oo sheegay oo yidhi buugaagtan la qorayaa waxuun magac waxuun waa runtii maalayacni weeye kaasi siduu u qoran yahay ninka qora waddankana waxbuu ku soo kordhiyey garaad iyo caqlina wuu qoray taariikh u dhigay weeyaan taytilkiisa iyo kaartariskiisu buuggu ma qorno haddaanu labadaa lahayn sheekadu ma qoranto labadiiba wuu leeyahay min maalintay bilaabatay ilaa maalintii magacii SNMta iyo dawladdii ka dhalatay halkaasay ku dhan yihiin kaasoo kale ha la qoro waxaan kaga baxayaa oo intaa aan weydiisanaya dawladda mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celiyay kolka ay xamarina soo qaado farmaajo wuxuu yidhi lamana ictiraafayo adduunna ictiraaf maayo annaguna walaalahayo odhan mayno adduunyada muxuu sheegayaa muxuu odhanayaa waa caqliga xun ee ku jira koonfur marka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenku iyay u jawaabin istaahil maaha garasho maaha caqli maaha adduunku ictiraafi maayo adduunka muxuu sheegayaa wixii afweyne u qorayba ku hadlaya taasina waddanka way ka dhammaatay Somalilandna way ka gudubtay ilaahay mooye bilawaadna ay u baahan tahay ma jiro war waxaan leeyahay oon ku dhammaynayaa jawaabba ma laha kuwaas caqli iyo garaatoona ma laha ilaahay caqligu ina siiyey ma laha markii hore ayaynu u tag markii dambe aynu daba socon imikaynu baryaynaa waxba yaa la baryayn ilaahay barya midkaasaan weydiisanaya waxaan ku dhammaynayaa oo kaga baxaya war dhaqanka waddanka ha loo hayo magacyadiisii iyo muuqaalkiisii iyo ha loo hayo madaxda jirtaa ha u qabteen ha hayeen kaasoo kalena ha la qoro